هلو السلام عليكم وسعيد حاجة صاحبكين oo idiin wada halxiraalihii xisaabta halxiraalihii xisaabta ayaan ku wadaa waxaan rabaa halxiraalahan aad u faham waa halxiraale cajiib ah oo maskaxda kuu furfuraya insha Allah halna anaa ka jawaabaya midna adaan kuu dhiibi doonaa oo adiga ayaa ka soo shaqayn doona okay waa tahay haddaba fiiri halxiraalahan si fiican u eeg meeshan waxaa kuu taala saddex ye ayaa kuu taala waay ya-da koowaad haddaad u fiirsato waa 12 iyo 8 ayaa waxay tahay 80 16 toddobo ayaa waxay tahay 207 207 waay haddaba 25 21 waa imisa okay halxiraalaha waa ka ma isku dayi kartaa intaanan aniga ka shaqayn oo aanan ku tusin ma isku dayi kartaa haddii ay haa tahay muuqaalkan jooji bawsde isku day inaad soo saarto numberkan meesha ka maqan okay waan ku sugayaa okay waayahay haddii ay kugu cusub tahay hore u sii soco bal sidee bay ku soo baxday waxaan ka bilaabi doonaa mid mid ayaan u dul istaagi doonaa waa tahay waxa ugu horeeya ka koowaad halxiraalaha koowaad oo ah 12 iyo 8 sidee bay 80 ku noqotay okay waxay ku noqotay qaabkan okay aad ila soco okay 12 kan ayaan soo qaadanayaa u horeeya waxaan leeyahay 12 lagu dhuftay 12 waa kan okay haddana 8 aan soo qaadanaya waxaan leeyahay 8 lagu dhuftay 8 okay 12 haddii 12 lagu dhufto waa 140 iyo 4 8 haddii lagu dhuftana waa 60 iyo 4 marka si aan 80 kaas u helo waxaan isticmaalayaa calaamadda ka jarta ah marka 144 haddii laga jaro 64 waa 80 sidaas ayay iigu soo baxday 12 80 sidaas ayay sax ku tahay waxaan isticmaalay ku dhufasho oo xagga hore ah tirada soo baxday oo aan kala jaray oo ay noqotay 144 haddii laga jaro 64 ay iigu soo baxday 80 sidaasay sax ku tahay marka halxiraalaha koowaad sidaasuu sax ku yahay okay kan labaad haddana kaalay kan labaad muxuu ahaa 16 iyo 7 okay isla waxaan raacayaa processkii ayaan raacayaa waxaan leeyahay 16 lagu dhuftay 16 okay kan muxuu ahaa 7 okay waxaan leeyahay 7 lagu dhuftay 7 okay 16 haddii lagu dhufto 16 waa 256 okay 7 haddii 7 lagu dhuftana waa 49 marka 256 marka laga jaro 49 waxa ii soo baxaya 207 sidaas ayay tan sax ku tahay oo 16 iyo 7 207 waxay uga soo baxday qaabka waayahay haddaba numberkii u dambeeyay oo ah 25 iyo 21 maxay soo baxaysaa okay waxay soo baxaysaa kan u horeeya soo qaadanaya numberkan oo ah 25 lagu dhuftay 25 okay waa numberka koowaad waa kan numberkan okay kan muxuu ahaa 21 okay waxaan leeyahay 21 lagu dhuftay 21 okay 25 haddii lagu dhufto 25 waxay noqonaysaa 625 marka 625
boqol labaatan iyo shan. Okay, labaatan iyo kow haddii lagu dhufto labaatan iyo kowna waxay noqonaysaa afar boqol afartan iyo kow. afar boqol afartan iyo kow. Okay, 625 laga jaray marka 444 maxay noqotay? boqol sideetan iyo afar. jawaabta halkan ka maqan waa boqol sideetan iyo afar. يا إلهي يا إلهي. وايه واتامرك حسابتي هالحراليه حسابته او انك شقيي او صح هوا كامرك نمبر والبفيري و 25 21 maxaa soo baxayay 184 sidaan inuu ku soo baxday 25 times 25 is equal to 625 21 times 21 441 kala jar marka minus 184 here is 184 marka waayahay hal xiraalahan wuxuu ahaa hal xiraale aniga aan ku tusay waaya haddaba ma jira waxaan rabaa inaan ku tuso mid adiga aan ku leeyahay ma ka jawaabi kartaa yes okay warqadda waan diyaariyay in soo qabto halkan waxa ku yaala hal xiraalahan ayaa ku yaala si fiican u fiiri 11 haddii lagu dhufto 11 waa 4 sidee bay ku soo baxday 22 haddii lagu dhufto 22 waa 16 sidee bay ku soo baxday 33 lagu dhuftay 33na waa hee adiga laga rabaa fadlan isku day jawaabta halkan u fiirso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 aad bay u fududahay fadlan isku day hal xiraalahan kadibna commentiga ku soo qor sida aad uga soo jawaabtay sidoo kale kana wuxuu ahaa kii aynu hadda qaadanay oo ah hal xiraalahan cusub waad qaadan kartaa ya-dan xagee ka timid adaa keensan kara oo baan keensan karaa waxaan keensan karaa gaari baan keensan karaa baaskiil waxaan doono haddaan doono waxaan qoran karaa yacni hal xiraalaha adaa xukuma laakiin waxa qasab ah habkaad wax ku soo saartay in ay iswada leedahay ama ku dhufasho iyo ka jaris ama isku daris waxaad doonto isticmaal laakiin waa in systemka uu sax kuu noqdaa aad baa u mahadsantihiin waxaan idinka sugaaba waa hal xiraalaha inaad ka soo jawaabto saaxiib thank you very much videogan like garee asxaabtaada la wadaag loofka ku dhaji malka iyo bixinta cilmiga ku barakoobaan waa idin salaami saaxiibayaal